عيال معنا مالها أنا عشر بانود دائما دمرك waxay noqdeen qarash raacyaal inkastoo adigna dumar aad tahay bal tala naga sii oo aad dumarka ku soo jiidan ha ka cabsan xuquuqdiina ana u dooday naga jaahil bixi ma jiro gabar qof ka qiimo badan badbaadi haday bukaan tahay barbaari haday soo baxis bajiyada bisbaaskeedan u boogsi waa bilan ay balanta u bixin bising u qow marka barasho kar u bislaaw markaad u baahan tahay qalbigeeda lagu gal ayaa uu ilaasi walac oo kale waa inaad korka ilaalisaa sida calankeena hooyo kale عيال معنا مالها أنا عشر بانود صاحب ودماشي لمبر كده يا ربا اياما سكسكا كدريمويا habartaa ku siinayso warooy murankii ma la yacniga ma iska daysiin ama cilaan leh kaftanka ma in hooyada hortaada lagu caayo ee hadda hooyada karaameynayso tus kalsoonida ee qofka ka qasi qof iyo balankeena inuu wax yar ka dhimaya xasuusno okay beeb diyaar waaridaada ku rumeena عيال معنا مالها أنا عشر بانود qof iyo muwaanta saga ma ka qarnay maxana u dhacay saaxib 2000 akoonka igu soo shub hadda duwa soo socdaa ilaa naag anfacad xamar waan ka waaye beeb naagsa oo qurux badan horta taagan dahma ka saareynda beebe balankeena sidaan ma aha ani adiga hadda rishiinay waxa loo dhaca jacayl bila flus ni ka tulhaba عيال معنا مالها أنا عشر بانود عيال معنا مالها أنا عشر بانود qofay maxaa ka aqalda ana isdeesana isla socnaa qofka ay ugu soo kordhisayna maxaa waaye hadal barate labada walaal ninka lacag lahaa weyn qofay ha igu dheelinay baranki ma ka wadaa waxaan باير برشلونة سديد ku dhufad barangi eed ani adin sideed sano isla soo socon barangi eed adigna xataa bina kuma caawin kare iga saar caloosha